hoggaanka sare ee hay'adda Asarda oo ah hay'adda horumarinta wadooyinka gobolada Awdal iyo Salal ayaa maanta shir jaraa'id oo ay qabteen waxa ay kaga dhawaaqeen in lacag deeq ah oo isku geynteedu ay gaadhayso $950,000 in ay ka soo kala gaadhay lacagtaasi wadamada Ingiriiska iyo Switzerland. waxa ay sheegeen mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlay 38,000 oo lacagtaasi ka mid yihiin in haweenka jaaliyada gobolada Awdal iyo Salal ka soo jeeda ee degan wadanka Ingiriisku in ay soo gaarsiiyeen. waxa kale oo ay sheegeen 22,000 oo lacagtaasi ka mid yihiin inay iyadna ka timiday jaaliyada degan wadanka Switzerland ee ka soo jeeda gobolada Awdal iyo Salal. halkaasi waxa ka hadlay Professor Xasan Cali Cusmaan oo markaasi isagu u mahadnaqay dadkaasi lacagayowgaas u soo diray isla markaasina sheegay in wajiga labaad ee bilowga wadadii laamiga ahayd ee isku xidhaysay Dila iyo Camuud in markaasi iyadu wax lagaga qaban doono. ilaahay idinkiin meeshii aad ku tala gasheen inay lacagtaasi gaadho oo ay marto runtii wax ilaahay lagu mahadiyo shalay darad maanan haysan lacagtaas hadana sadanahay maanta lacag ku dhow maxaan ku dhahay 59,000 baa inagu soo kordhay oo aan hawsheennii ugu diyaar garoobeyna haddii ilaahayna gaarsiiyo oo walaalaheen nagu soo deeqeen anu wada ducayna walaalaheen marka hore intii hawshaa gacan ka geysatay inuu ilaahay khayr siiyo inuu ilaahay lacagta UK xooga ugu badan hadda Switzerland nagu soo deeqeen wayna soo gaadhay halkii aad ku tala gasheen way mari insha Allah biidhnaahi taala iyadoo la gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa dumarka UK oo runtii iyagu yidhi waa bilowgii ee maaha dhamaadkii ama waa fayskayagii hore oo waxaan ku jirnaa insha Allah taala fayskii horena ma aanan dhamayn oo in badan baa noo dhiman fays labaad iyo ku saddexaadna waan galeynaa ilaa intaan ka dhamaysanayno at least 1 kilometer waa sida ay soo yiraahdeen marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay u fududeeyo inta uu hadhay 1 kilometer durba barbay socdaan baan filayaa. mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay waxa ay si gaar ah ugu mahadnaqeen Axmed Muuse Qaahira oo jaariyada degan wadankaasi Switzerland ah ayna sheegeen markaasi in uu kaalin xoog leh isagu iska xil saaray sidii lacagayowgaasi loo soo ururin lahaa oo loo gaarsiin lahaa. halkaasi waxa iyaguna sidoo kale ka hadlay Cabdulqaadir Aadam Nuur Basra Jirde Dr. Cabdishakuur Sheekh Cali Jawhar oo qurba jooga reer Awdal kamid ah iyo Muumin Jaamac oo ganacsatada waaweyn ee gobolka Awdal kamid ah waxaana ay aad uga mahadnaqeen dhamaantoodba dadkaasi lacagta ay isxilqaameen ee ay u soo direen si ay uga qayb qaataan horumarka gobolkooda. Xasan Ciise, shabakada wararka Salal News, Boorama.